maanta waxaan joogaa sheekh ma sha Allah shaqaale sheekh in badan tahay sheekh Abubakar ما شاء الله عادي أدعو فحسن على كلن كاجا طبعا أصحاب تابع عادي أدعو سلامية اسطنبول أيام جوجنا ما شاء الله الله ينهدي maanta waxaan dhacay qabow adduunka ma dhacay wada maanta joogaa soo boqday waxaan dhacay qabow adduunka maanta waa salaam dab wanaagsan dadku wax saar magaalada waqtiisa السلام عليكم دمانتي وين سلامي سلوى دمانتين وفحولنا كعصنية سبسكرايب يا لايك سبلونتو هيد ما انتو حسمينيا بارتي 2 ان كاي هادلايو maxaa Soomaalida Turkiga lagu nacay runtii hadda marka tagto xaafadda Soomaalida ee Istanbul Aksray waa cidlo ma joogto waxa laga yaabaa markaad xogaa socotaan hal qof ku aragto halka 2021 iyo 3 horaantiisii aad loo joogay laakiin mar qura ayaa Soomaalida Turkiga ka yaacday marka maxaa keenay Soomaalida Turkiga ka yaacdo baan maanta ka hadlayaa runtii waxaan ka codsanayaa hadda ku cusub channelkan subscribe iyo like waa maasan tahay qof kasto isaaran waxaan leeyahay aad iyo maasan tahay subscribe iyo like isaar wixii talay tusaalaan fikirka comment ugu reeb waan maasan tahay horta si guud marka la eego yani Turkiga aan runtii muddo ku noolaa aan Turkiga runtii waxaan joogay iyadoo Soomaalida la ixtiraamo dadka madowga la ixtiraamo runtii qiimo ay ka leeyihiin waayo runtii sida ogtahay Turkiga madowga xuduud lama laha wadamada Turkiga u dhowday inta badan waa cadiin marka inta badan askar Turkiga waxay aaminsanayeen inaanu jirin qof madow ah oo bilaa sharci ay aaminsanayeen inaanu jirin taas waxay keentay marka waayida marka soo batay ummadii aad soo batay oo Soomaalida soo batay oo Afrikaanka soo bateen in ma garanaysaay Afrikaanka ku dhigta lagu kaco iyo dadka madowga hortaan qabano isla markii dadkii la qabtay madowga iyo Soomaalida la arkay inay jiraan rag dad fara badan oo madow ah oo Soomaaliya isku jira Afrikaan oo aan sharci haysan taas waxay keentay marka inuu dhaco tarxiil waaliya 2023 marka si guud oo Soomaaliya marka si guud u hadlo yani Soomaalida marka la eego waxna ayaga nacay waxna ayaga lagu nacay waayo dadkan Soomaaliya runtii waa dad fiican laakiin waxna way nacay waxna lagu nacay marka waxaan doonayaa in laba kala qaado balan ka sheekay wax ayaga lagu nacay wax ayaga ay naceen marka hadii aan ku bilaabo wax ayaga ay naceen runtii sa ogtahay Turkiga dad fara badan oo soo guuray Masar ka soo guuray Sacuudiga ka soo guuray dibadda ka soo guuray Yurub ka soo guuray Ameerika ka soo guuray dadkaas oo garanaysa hami weyn Turkiga lahaa waa waddan muslim waa waddan fiican waa walaalaheen laakiin markay imaadeen runtii la kulmay garanaysa waji ka duwan waji hore waxaan daawaday nin magaranaysa la wareysto Soomaaliya Ameerika yimid oo ka sheekeynaya maalin nin askari ku qabtay Ankara waxaan ka yimid Ameerika Turkiga aad baan u jeclaa xami weyn ka lahaa waan aaminsanaa maalin baa wuxuu yiri meesha tareenka wixii aan ka soo baxay nin baa wuxuu geesi la baxay askari qabtay waa dhibaateeyeen marka yani dadkii markii waddanka soo guureen oo runtii Sacuudiga runtii aad loogu soo guuray oo aad Nairobi aad loogu soo guuray oo la soo yaacay oo yani runtii waxa laga lahaa Turkiga hami weyn Soomaalida laakiin maxaa dhacay waxay la kulmeen wixii ka duwan oo koow ka tahay sharciga magaca la isku adkeeyo Turkiga wuxuu kamid ahaa wadamada sharciga aad u fududeeyay runtii la iska helo ee qaamada runtii aad u fududahay inkastoo qofku markiiba ay sanad siiyaan laakiin haddana wuxuu iska ahaa waddan magaca sharci fududeeyay laakiin waxaa dhacday in sharciga la adkeeyay hawlihii isbedeleen nolosha adkaatay dadka qaar guriga iibsaday ma sharci loo diiday marka qofkii guri iibsaday ee Canada ka soo guuray Mareykanka ka soo guuray haddana sharci loo diiday yani wuxuu meesha ka joogay malaha marka waxa uu weyn runtii Soomaalida ka yaacay xitaa sharciga midda kale waxaa Turkiga yani Allah sax kamid ah leeyihiin يعني أجانب عبد الرزاق حكلين يعني حكلين دي حافظان أجانب كوسو بطو حافظان أجانب كو وكبت تدك عالية ضوضن كل شيء حافظة حكلين ولا حرة مركا حافظة ولا حرة معناه واحد هاي يعني أدريسك حافظة مش خيو يعني هدي قامتك هذا عدو يعني عدو استعمال أدريسك معناه دي ملو قنصنا وين حافظك ملك الأداء هدي دولت حباتو أدريسك لو بهني أدريسك مش خيناه waxay tahay xaafadda waa la xiray
saasa marka inta badan dadka macnaha guryaha iibiyo badanaa oo dalaaliinta dadku waxay kula taliyaan qofku intaan guri iibsan inuu horta iska eego xaafadda ma furanta mase waa xiranta. waayo xaafaddan waxaa ku leeyahay haddii ajaanib ku bato xaafaddan waa la xiraa. waxyaalaha runtii adiga sababta waxa turki waxaa ka mid ah runtii aan aad ula yaabay waddanka runtii waddan yani oo federaal maaha sida America ama Soomaaliya kale federaal maaha. waa waddan hal waddan ah. haddana waxay ku leeyihiin qofku meeshuu iqaamada ka qaatay unbuu joogi karaa. beri hore waxaa jiray dadka turkiga aad u jooga beri hore waxaa jiray 2009 iyo 6 meelahaas waxaa jiray sharciga qaxootiga wuxuu ahaan jiray qofka meeshuu qaxootiga ka qaato oo laga diiwaan geliyo ayuu joogi karaa magaalo kale looma ogola. tii hadda waxay sameeyeen haddaba waxay ku ablaagareeyeen iqaamadina waxay ku leeyihiin qofka hadduu iqaamada ka qaato Ankara joogi karaa. adoo iqaamadaada Ankara tahay booliska Istanbul kuma ogolaanayaan inaad joogto Istanbul. way ku dhibayaan way ku handadayaan booliska waa lagu geynayaa waxaa halis ah in markaas bastar uu saaliyaa bax Ankara aad. marka waddankana federaal maaha waddan caadi ah macnaha hal macnaha system waaye. haddana waxay ku leeyihiin qofka magaalada ka qaato wuu joogi karaa. marka haddii aan ka hadlo waxaa runtii lagu naca Soomaalida horta waxaa kow ka guryaha. runtii dad Turkida runtii waa dad runtii magaranaysaa shaqeeya subax shaqo u kala lahaa 6 ilaa 5 guriga qaarkood ka baxaan. marka waa dad runtii magaranaysaa habeenkii xilli hore iska seexda. Soomaalida maadaama dad la bilo ay yihiin oo inta badan aan shaqayn dhalinyartiina soo badatay habeenkii waa la soconayaa luuqa markii la marayo waa la buuqayaa waa la soo jeedaa. waxaa laga yaabaa korkaada Turkiya degan hoostaada Turkiya degan jaarkaaga waa Turki waa la buuqayaa qaarkood waxaa laga yaabaa muusig baa u shidan. marka yacni buuq badan ma dhacay taa horta kow ka tahay. wax kaloo laba ka mid labaad waxay tahay yacni qofka guri kiraysanaya Soomaaliya qof guri wuxuu kiraysanaya masalan soo qaad baan inta badan Istanbul aan joogay Istanbul aan qaadnaaye $200 kiraysanaya ilaa $300. guriga waxaa laga yaabaa waa 3 qol iyo fadhi. wuxuu sameynayaa sariiro badan buu keensanayaa. marka qofkii marka hore guriga kiraystay wuxuu ka kiraystay nin Turki ah ama wuxuu ka kiraystay company. heshiisku wuxuu ahaa gurigan anaa degay kaligay ama waxaa laga yaabaa 2 qof 3 qof kale wataa kaliya inuu dhaho. marka Turkiga inta badan family badan maaha family ilaa aduu 4 ilaa 3 ama 2 qof. laakiin qof Soomaali markuu guri kiraysto wuxuu sameynayaa guriga wuxuu keenayaa intuu qolkiiba 4 sariir dhigo ayuu wuxuu leeyahay sariir $100. markaasuu waxaas umada keenaya marka 20 qof uu keenaya. marka qofkii dadkii taariibka masaakiinta ama meesha joogay ayuu kasii macaashaya marka wuxuu leeyahay calaa qof waa $100 qolkana wuxuu dhigayaa 4 sariir qolkana dhigayaa. meesha marka waxaa dhacay marka buuqa meesha imanaya marka nin guriska la yaabay wuxuu dadkan tirada badan maxay tahay. ani gurigan waxaan ka kiraystay hal qof aan ka kiraystay $200-300 isiiyaa bishii ama isiiyaa waxaan dad maxay tahay. waayo qofkii guriga wuxuu keenayaa intaas qof guri keenayaa 20 markii hadduu qofkii hadduu cala qolkiiba u dhigo magaranaysaa u dhigo 4 sariir u dhigo oo dadku ilaa 10 dhabo dadku noqonayaan. marka intaas qof markuu guri keeno marka meesha buuqa noqonaysaa marka jaarka waa ku dhibsanaya deriska waa ku dhibsanaya oo waa la yaabaya. taa horta way ka mid tahay nacay wax kaloo Soomaali u nacay taariibka. doon baa la soo qabanayaa markay saaran tahay 20 ku dhawaad 10 waa Soomaali. jabti baa dad la soo qabanayaa aad u fara badan 30 markay ama 50 yihiin 20 waa Soomaali. beri hore marka Soomaali marka lama tixgelin jirin ilaa heer ay gaartay in maca dowladaha kale maca ay sheegtaan magaceena oo dhahaan waxaan Soomaali nahay.